timaa inta dhinac yar kasoo deysto timiyo aan soo qurxiyo waxaan soo mariyey kalar soo mariyo naagtaano dee social bila nasiib baa leeyahay adoo kale haddaan ku hela nafta waan ku huri lahaa markaas waxaa ku iri subxaan allah waxaa le dhib male waxaa adiga iska lehe caadi iska dhig ha degdegin bes lacagtii markaas soo qaato laakiin gacantuu kaaga dhargaa markaa isagu maxoogo meelaha dee dadka hoteelada dadka maaragtay kafeega iyo waxyaabaha ku cabaan joognaayo anigu qol lama gal naftirkeyga waa ka didsanahay ma fahamtid laakiin marmarkoode way iska jirtaayoo gacanta dhabbay siiyey iyo marka aan kale salaam isdhehayno isina tegayana tegayno dee waxyar shamis iyo waxaad oo kale haa marka waxaa dhacday sida markii maalmaha guurka markaan ku heshino maalintii aan is aragnay baa aleelehe inantii aan ku dhahay oo walaashay ahayd oo habriirtee dhashay baa ayadana meesha imaanayso qorshe aan isku ognaa weeyaan suuligaan tagayaa buu leeyahay suuliga ka dabagelaysaa ayadana meesha yaroo gacmaha lagu dhaqday soo maad arkin bay waxay iska dhigaysaa inan yaroo waxaan arkayna iska dhigaysaa way ku dhacaysaa ala walaa raali noqo leedaa markaasoo sidee waan rag maxaa la rag damac iyo dacar kama dhamaado waa waxa ani ayada isla ognaa ma fahanti markaas xilad ala walaal ma sha Allah raali noqo horta raali noqo markaas wuxuu leeyahay dhib male wallahi ama ma zaid man kugu dhaco walaal may qosleen qosay ma sha Allah inuu wanaag wax aragnay masala nolo dhaca waraga wax ogaada aad sheegraya oo gabdho waxaan ku yiri maanta caawa committee hani laga arko wax badan waxa ruuna laga wasiiyay waxaan ku dhaaa markaas wuxuu leeyahay taleefankii marka hore soo qaadatay bay wixii ka soo bixinaysaa ayaan ku dhasheelad boorsada ka soo bixinaysaa warqad ugu qoran nin ajiib baata walaahi baan ka helay leedahay way soo garaaci kartaa laakiin taleefankaageeda ay siisana ka sii fiican buu intuu nimanka qaar geesaha intay iska eegaan buu ninka dhab taleefan ku siiyaa ana waa sida doonay oo ninka lacagta aan qaato waxa rabaa waxaan kula dagaali lahaa markaas waxaan ku yiraahdo waayahay taleefankii uu ka soo qaatay ayadana taleefankii leedahay kaama tageysii waa bini aadan waxay isleedahay ama tuura taleefankii uu dhab ku soo siina soo tawaale sheekeysanaysaa waxaan ku yiri waxay ku balaminaysaa hoteelkii maana hotel kaleeto soo asiga ana iiga boodin bas isbuuciina waxaan ku heshiinay inuu lacag intuu isoo siiyay oo arooskii dee aan sameeyo maadaama reerkii wax ima aqbalayaan guurka aan ku iraado lacagtiina aan soo qaatay wuxuu isleeyahay naagtan way ku bisishahay midaana dee ayadan hoos ka wado lama ogaba inuu wax loo daadiyo shabaq loo daadiyo inuu yahaba wuu soo baxay waxaa dhacday inantii wala sheekaysatay isagu wuxuu leeyahay dee goormeen isku imaanaa hoteelkii waa diyaar maadimaati bil baa inoo qabtay maxaa kugu dhacay tanna hoos bay ka wadaayo xilada Allah habeenkan ku arkay ma waseexanbo weliga in adoo kale maan arag maalintaad igu dhacday jirkeyga meesha kamid ah taabatay sibaan waxaan ugu dareemay anigoo dhan romantic niyo ma aqaan gacmahaaga jirkaaga waxba ii ka soo jiido un beelada ayadana bes markaas waxa dhacday meeshii ku balamisa anna waxaan ogeyn iska socdaan waxaan sameeynaa iska iimaanaya meesha asiga marka taxi message u qora waxa le maanta gurigan ku caajiso meelo kamid ah qaxwo ku soo cabaan adkaatay hey meelaha kamid ah qaxwo ku soo cabaale asiga marka igama filinay meesha uu inanta ku sheekaysanayna uu iimaanay hay waa leeyahay waan u sheegay moogta igama shakinay inaan is ogna oo inantu waatay ku sheegtay magaalkan soo aadayayo ku tiroosle haddaan soo galay inantii inankan isla qoslaya arka ninka waxa ka yiraahday jeeb weynaha aha marka indhaha qaxwo ku siiyo asiniina qaxwo ku siiyo uu qaracmay uu naxaya markaas iga soo dabaxa demesh waa xamar ima soo raaci karo meeshii degan yihiin waa meel yar oo go'dan oo ayaga lagu ilaaliyo haddaan soo baxo ima soo raaci karo wuu baqanayaa magaalada dhinacan kale ma soo gali karo waxaan soo baxso iga soo daba cararay wuu sameyn waayey waxaan ku yiri waa ka soo tegay way soo wacaa waxaan ku tax message isoo qora adeer nagu kala badbaayeen anigiyo nafsadeedii ku ogolaaday oo waxaan ku yiri reerkeygii kaaga soo go'ay oo meher xad ku ogolaad ma damacdina naga la sheekaysato adeer isku kayga daaba ku yiri باي تلفون كنا كحد ده قلت كي أسيق الله سمعها أوكي قار كان بلا حشوت كيو أرانا يوحاو ملينا وكول سودي باتي بس مركا وحاد عضي سيدي ساكو إهن كي وكقدنو نينكالو بهالو وزيره وهذا كاو حنكوير قناعسين الله باسينا كقبتي marka waniisa wada dhaafay aniga taleefanada aan isticmaalo magacayga kuma qorno marba sim card-kan isticmaalo ma iska tuuraayo waxaan ku yiri inaan baadiyo ka imaato qaraabanahay dad kale toon garaneen waxa un baa ka qaataayo markaan isticmaalo danta ay ka gaaran waan tuuraa
هاي waxaan dhacday kii sidaan ku tuuray ninka xaguu iga soo raadiyaa bahal nin wasiir ah waxaan ku yiri lacag haysto sidoo kale lacag badan baa hele asina sidoo kale waan ula تري وسيلك sheekaystay صغرى أتكاتي عاوي هاي ha waxaan ku yiri ninkii wasiirka baa wada sheekaysanaa alla ninka waxaan ku yiri kaa wuxuu ahaa mid maasha Allah gacantiisii gacan laaban wax walba uu siiyaa oo wuxuu yiri gaari baan kuu gadayaa wax walba baan kuu sameynayaa dib malahan baa ku iriyo anaa gaariga doonanaya lacagtiisii guri baa inoo firaashaya ku irihayo waa lacagtii wuu isiiyaa sidii baa ula sheekaystaa meeshii baa isla tagnaa marka qaarna waan is yar qariyaayo wax xishoonaya baan iska dhigaa laakiin waxaa isle ama waxaa la sheekaystaa meelahan marmarayaan حشوة بسم الله بسم oo الله markaas asi xagiisi waan ka xishoonayaa laakiin aniga dadkan lacagihii gabadhan iyada khaldan waa oohinta gabadhan iyada naa saxsan hablo waa qosolka inta gabdhooda ku taageertaagina gabadhan iyada saxsan waa qosolka gabdhaha waa gabadha oohin iyada khaldan waa oohinta ku soco gabdho wax badan baa nala soo dhibaateeyay dhib ha u arkin meeqaga hablo laga oysiyo caruurii looga tegay ku soco adii ku soco Soomaali ha u sheekada nixino okay waxaa dhacday ninkii wasiirka ah ka horta wuxuu igu yiri ciidan baa ilaalinaya wuxuu yiri naaba ilaa waan ku raacayaa gurigaagii waan ku geynayaa haja war baa dhacay haddii guriga la keeno dacee baa dhacayse maxaa sameeyaa anigii aad baa u walwalsanahay waxaan ku yiri dhib malahay xaafad baan u tilmaamay xaafadii way soo kaxeeyay guryaha magaalada guryaha ugu waaweyn oo hadda waxaan ku yiri hay galaaska oo qaaliga baa agtiis gurigii baa agtaagay waxaan ku yiri haye gacali gurigan baa degana hadda ma degni ogow gurigan baa deganahayo ee dhig baa ku yiri marka asiga raayda soo siiyo gaariga igu soo kaxeeyay mooyaane guriga inuu ila galo asiga ma doonayo marka wuxuu ku yiri gurigan aan degana ma gurigan degantaa wallahi billahi ina reer lacag la ka soo jeedo way ka muuqataayo de quruxdaadii labiskaagii shacnigaagii waxaan u jeedaa yiri de wax inay ka dambeeyaan ha hay waay gurigii markuu igu dajiyo dhaqaaqayo anina wax tartiib u socona de waxaan ku naag xarakoonaysa iska dhigaa dhacday waxa rabaa intuu tagay in albaabka guriga ka soo noqdo mar alaala markuu tagayaan arkay baa labada dhinactaan iska eegay baa waxaan ku yiri baabuurkii ku soo orday dhiw meesha baabuur yaro marayo taxi ta gacanta u haati asi wuxuu moodaa gurigii inuu geeyaan degana هاي waxaa dhacday sidii baan ku tagnay ninkii sida lacagtii buu isiinay kan lacag aad u fiican buu isiiyo oo xataa waxaan ku yiri maadaama adiga dee dowladda aad ku jirtay marmarka qaas waxaan aad u tagaysa qofku qaniinaya ma jira marka meelahan ku kulmeen dadkani meelaha lagu kulmayo waa meelo laiskugu imaado oo ninka marka quruxdeedii ku wareero oon la sheekaysto by telefonana wax walba uga dhameeya ileen wuu arka moogta qofaan arkaynin aad weligaa arkin waxba ma siinaysa laakiin qofkaa markaad aragto oo aad quruxdeeda ku laakiin gacanta lagala daaday may gacanta marmar u maahine mar walba ma ah marmar shumiskana wayna daaweyne هذا خاص واقص ولا عقتي مركا العاها وين كسو قادني ويان واي باي كاشا وسو قاتاني وما قرت لغما توجين ميا may ana baa wax tuujinayo ayaga way xishoonay marka gacanteeda waxina marsano cidiyo ku soo xalo waxaan ku yiri sida marka u saar uu dhalaalayo iga daa marka ay noo tahay bule waxa dhacday ninkii lacagta marka ka soo qaatay lacagii hore meel ku haystay waxa dhacday inanta iyadana sidoo kale way hoosheed way wadataa oo ma isku kala bedelna iyadana kee la soo sheekaysato baa anina u daba mareeyayo la soo sheekaystaayo way carootayo waxaan ku yiri sas baa iskugu dhaxmeersana ninka labada nin boo inoo dhaxeeya marna ayada kaas bi ada marna kan baada lacag fiican bay inoo noqotay waan isku darsanay dukaan waxa furanay suudadka lagu iibiyo oo halkii dawladda u dhow lacag tiragaad ka dhacaysay ma dukaan suudadka ku dukaan ba shuruukan ku noqonani ayada dukaan ba ku iibsanay suudadka lagu iibiyo shaararka wax walba waxa ku rag un loogu talagalay waa lacagtii ragga ka soo dhacnaba dukaan ragna ku furan ma garat cajiib caawa u daranta wallah way ni waxaan ku yiri lacagtii meeshii baan iska guranaa marba nin walba marba meel baan tagnaa waxaan ku yiri waxa sida ahayn maalintii waxa igu laba maalin ba igu yaab ka badneed inta arinta socotay inaan saaxiibo ahayn walaasheedii oo mar walba idii jirta allah inantu dadka dheekeerada iyo lacagaha la hebay aheedo ninkeedii waxaan ku yiri dawladda bay usoo dirsato lacagta adduunka uu ka qaato dib dam uu usoo eegi waaye oo waxa ku dhacday ninkii markuu lacag buu yeesho ninkii waxa ku yiri naagtii uu inkire dhahayso soo nimanka lacagta aan ka qaato mid kamid ah weeyaan anina ma ogi waa nin naagtii soo dhacay marna waa carooda waxa isir allah man qaadan lahayn lacagta haddana waxa eelbadu kala qaadan lahayd iska daa ka soco jannaay sidii baan uga socdo waxa dhacday mid kale ta haddana dhacday mid kale sidoo kale adigi maalintii dukaankii anoo
soo galay oo rabo bal wixii oo loo baahan yahay oo kale inaan Dubai iyo wadamadaasi wax aan u dirsano ilaa laba weji aan leenahay wejina ganacsi aan ku leenahay qof shaqaale inoo joogo oo qofka shaqaalaha ma oga dee waxa anaga hoosheen qaas bay inoo tahay secret cid og ma jirto qofka shaqaalaha inoo xisaab xirkan ugu tagnaa iyo dalabaadka markii loo baahan yahay wejigan kale ani inantaano adduunka iyo waxaan ku dhahay raggaani iyo dowladdan aan ku dhex jirno waa gooni waxaa dhacday warka ugu daalnay waxaa hoosha sidaa noo socotay oo dukaankii maalin mid kamid ah oo lacagtii ugu xooga badnaa aan kasoo qaatay dukaankaygii ka labsanaya aan arko anigoo banaanka taagan oo taleefon ku hadlayo ninkaanoo dharka isku eegayo waxaan ku yiri alla waa raggan dhici jiray waaba ninkii igu fiicnaayo lacagta xoog gala aan dukaankiisa ku furtay dukaankaygii buu ka shoobin karaysanayaa waxaan ku yiri leeyahay migu wacaya ha ku hayaa meeshaan oo calool weyn taagaya markaasaa waxaan ku iri iyo naxtinta adduunka waxaa iri may waa inaan hadda kabacdi indhaha soo xiranayo shareer soo xiranaa markaan imaanayno dee waxaan ku iri maanta ilaahay baana badbaadiyey raggan ciidan baa ilaalinaya beriyaana badbaadinayaan ku dhahay dee ilaahay wuu noo jeedaaye dembi baa galnay bes waxaan dhacday inaan marka dambe sidaan shareerkan ku xiran jirnay magaalkan sidaan uga qaraaban jirnay waxaa dhacday maalintii ugu darneed nin baan la saaxiibay ninkaasoo ahaa nin jirkiisa soo dhistay qurux badnaa ilaahay lacag siiyey kaali arag ahaa waa ninka godkiisa ku dhici dooneen ninkii ganacsigaani inintaan iskugu jirna aan ka baxo jaceyl hay galo tuugad jaceyl galay maxaa ka xun hadda daba lagu qaniina ku soco qaybtii ragga la soo ninkii waan jeclaaday waxaan ku iri ninka quruxdiisa jirka waxaan ku iri dadka jiimka qaado oo ahaa ganacsadana wuu ahaa hadda waxaan ku iri ninkii baa la sheekaystay waxaan ku iri inantii mar walba ila dagaasha way ka celisanaya ninkan ka joog naa waxbaa ku sito naa kan wakii godkana gelin lahay naa maxaa ku daba dhigay naa naga daa naa hoolaheeni baa ka badan naa raggeeni caloosha waaweynaa iska aadno naa raggii waxaan ku iri wasiirada iyo waxanka ninkaan naga daa ninkan si walba lacag u leeyahay laakiin waa dhalinyaro wax walbaa ka imaan karo waxaan ku iri ninka ganacsada keligiis ma ahayn waa ninka nin hoola kale ku jiro hay ninka gabadha waan ka diiday ninka guurkiisa baan diyaar u noqday hayaan ku iri waan ku guursanaya oo arintii waxaan ku ninka lacagtiisa ma doonaya asaan doonayaan taagana lacag waan helayo de qaniya la doonaya soo ma markaan waxaan taaganahay هاي مركز سو حد عدنيكي وهكري هاي هو يغيريو سيغنده وغا هلايو aad buu ii jeclaaday been ilaahay caayo waxa ku yiri saa hoosh ku wadnay guurkii baa soo dhawaaday waan isguursanay marka isguursanayno aniga markaasi waa aabahay reerkayga way soo baxeen oo waxay imaadeen Kenya Kenya markay imaadeen wax marka ay bixinayo oo Soomaali iri jooga ma jirto waa aabahay inuu taleefanka aabahay leeyahay mogta laakiin waxaan sameeyay wadaad oo qaraabo ahayn baan u geeyay sidiiba asigiiba bixin ninka wasla tagana way ninkii sina waa u rabaa sina wali xooga cabsina way igu jirtaa waxa la bal horta ninkaan dabeecadiisi soo baro ninkii baa isguursanay gurigii baan isla tagnay inantii aad bay igu carootay waxay tir waxaad sameynaysaa ani aad baan ugu xumaaday nolosheeni meel fiican bay maraysay kulli waa kasaday ku taal ninkii markaa aqal galnay hoosheeni sida ku soconno oo meel fiican inoo maraysa ayaa waxa dhacday raggii aan la soo sheekaysan jiro wasiir hadhiin xildhibaan hadhiin ganacsada hadhiin kulligooda maalmihii qaarkood ilaan dad aan wada sheekaysano oo marmar aan kulmi jirnay ahayn mogta qaarkood sabir bay ila gali jireen sawirkeygii qaar maadaama nin walba de maxaan kugu saxsuustaa allah keen sawir aan kula galay way dhihi jiray sawir baa isla gali jirno anagoo taagan iyo ani waan ilowada dadkii sawir inay haystaan waxaa dhacday sawir markii meeshii ninkii meel fiicayda noo maraysa inoo lagu yiri nin ka mid ah maalin anagoo wada soconno nin ka mid ah oo xildhibaan ahay oo asiga dani ka soo gashay inaa is aragnay asiga ani ma ogey shaqada ka shaqeyso waaba ninka waaba ciidanbo aan anigu guursado naftirkiisa intaan aniga qarsana intaad kale u qarsan yahay bal maxaa ciidan ii geeyay iyo jecelkiisa waxaa dhacday ninkii sargaal waabaayo oo dee waxaan kuri sargaalada aan isqariyo aan la arago haddii Soomaalida waxaan kuri sida Fahad Yaasiin oo kuri dee sawirkiisa aan la arag waxaa dhacday sida ay tahay anigu waaga igu bari ninkan waxa ku warbixintii soo gaartay warbixintii inanta kale xitaa waa la soo ogaada ayada nafsirkeeda sawiradeeda maalinka dambe ninku ii aamusa horta intii saas ahayn inantii aniga walaashay ahayd baa ninka la kulantay oo waxay ku dhahday maalin sidoo kale inay u jijiso isku rido de jaceelka ku abuurto de nin adagoo de ciidan waxa ma qoreen anaga wareeg buu ku yiri
hoola waa nin budget waaweyn madaxweyne iyo adduun budget ka soo qaadanayo lacag waaweyn ku xisaabtamaya waxa naagahan iyo waxa maba taagna waqtigiisa waxaa dhacday marka waxaa lagu yiri gabadhaasi saasay iiga tagtaa mar walba mid walba hadalka isku mid buu noqday wuu ii yimaado wuxuu ku yiri naya maxaad samaysay waxaa ragga nin walba leeyahay inanta anaa la sheekeysan jiro dadka aniga waa inkira ma jirto waxaa ka dhaco kano may buu ugu yiri tuugad qaa'imad baa tahay waxaas rag ma kusoo guursadeen ama waxaas rag ma soo martay kowba ka siinayaayo ninka waa maseero raxan aniga meelan galaa waa inantii warkeeda ay ku soo dhacay waxay tir soo baxsane ani waxaan ku yiri ma ka baxsanayo ninkayga waan jeclahay ninkan nin looga tagi karo meel ma ahan ninka aan la joogo dee ninkan waxaan ku yiri oo kale lama heli karo waa qaniyadiisi maasha allah markaa ugu qaninin yaa ها waa isla deganahay oo ninka waa ninka hal aragan kor jirkiisa dhisan yahay waxaan ku yiri maanta maasha allah marka laakiin may warkaas guursanay wayaan ismeersanay wuxuu sitaa markaa ma baastoolad mise akay mise baasuuke oo aan daaleyni bas waxaa dhacday waxaan ku yiri ninka meel aan ugu tago ma jirto iga daa ku yiri maya anaa soo baxna waxaan waa bin aadan nin maseera adduunka ayuu ku jarjaray ninka aad buu hinaasay waxaan ku yiri maya ninkii maalinka dambe habeenkii gacan buu ii qaaday wuu dilay baligala dhacay waxaan ku yiri wuxuu yiri naagtan deerarkii soo dhameysay anigana lacag baad ii guursatay nahaya lacagtan qaado maxaad aniga maxaa la ii soo guursatay jacayl imaada soo guursan buu ku hayaa lacag busas igu soo farqayo wuxuu yiri naa qaada lacag daa doonaysa ani waxaan taagana mayo walaalo lacag ma doonayo adaa ku doonayaa raggaasi dee waxaan maxaa la yirahdaa sheeko baa ina dhex martay waxaa ma jirto maya buu yiri habeenkii waan baqayo waxaan ku yiri ninka biskoolad aan ku arki jirin buu xitaa soo sitaan arkayo ninkii anigu iska ka ilaalinayaayo dee tuhun baa galay xusri naagtan wasiiradii iyo xildhibaanadii soo dhameysay ganacsatadii talo adigana maxay ku rabtay de naftirkiisa waa nin aad oo waxaan ku yiri dawladda dhan u kala hayo aan la ogeyn magaciisa qarsan yahay Soomaha waxaa dhacday aniga habeenkii waa iska soo baxsaday oo inantii gurigeeda imaadani inantii isdagaalnay gabadhii walaashay maxaan ku lahaa meeqan kula hadlay naaya mowqafkaagi taagnaa baan ku iri hadda maxaan sameynaa hay waayahay hadda waxaan ku iri hooshana iskaaga noqonaynaa waa ka baxsanaynaa waa ka baxsanoo magaalo kalan tagnay magaaladii baa hooshii ka wadnay aniga hooshii saas u bilaabo ninkaaga ka baxsatay waan ka baxsaday hoosheedii baan rabaa inaan sii wato haddaba kii ku qabay waa kii iqabahaa soo iqaba baan ka baxsano inantii waxay tiri aan ka baxsano ninka intuu gudili lahaa laakiin maadaama dagaalka suug uu sitay imsaad ka fikirtay fikir dheer kugu qaadatay waa midii waxay igu qaadatay soto intuu idilaya aan sugayay oo aan gurigii sii dhex fadhiyo oo lacagtii ku farqayo leenahay ilba lacag baa iisoo doonatay lacagtaa qaado orda blaaki ii dhaaf oo aan ley lacag ma doonayo adaan ku doonayo way soo dabagalay wuu isoo dabagalay markuu isoo dabagalay marka asiga wuxuu igu soo dabagalayaayo ani aan doqonimo sameeyey asiga maadaama aan jeclaaday taleefankii igu yaqaan iska maana bedelin saasuu igu soo dabagalay marka mar walba intaas message isoo qora way soo waca way soo raadiya waxaas baa dhacaysa marka kale shirkadii buu tago qofka xaguu jooga ka isticmaalaya uu ka yiri mala ninkan waxaan ku yiri u soo socday way soo dabagalay wuu i helay waxaan ku yiri wuxuu yiri isku kee oo siiyay aniga jacaylkaagii baan ku hayaa waan ku jecelahay soo noqo nolol fiican baa sameysanaynaa kan weeye kan waayaha waa ku yiri waa soo noqday inantiyo sida uu weynayso le naaninka iska daa naaninka waa ninkii naaninka iska daa maamaya ku yiri ninkaan nin la heli karo maahane daymaya iska daa soo daba kacay guriga hay keeno waxaa ku yiri habeenkii meeshii waa way soo ceshtay tayma laba maalinta saddexaad buu iska shaqo tagay dee raggii haddana dhibka jira waxay tahay raggii rag kamida baa arkaya ilaa wixii dowlad bay kuwada jiraan markaas buu soo carooda qaarkoodii waxaan ku yiri waa dhib badan wixii wallahi naagta naag aad u fiican bay ahayd alla say u macaanisay u qurux badneed qaar baa been ku dardaro markaasuu soo caroodaa guriga wuu imaadaa bahallaadii feris ka qaba buu yiraahdaa maana maanta meeshaan tago uunba rag qof walba saas buu iisoo eegayaayo waxaa ku yiri haddana waa qaracma waxaa iri saa nolol ma ahani maxaa tale qofkaana kama tegi karti inantii walaashii baa u sheegaa ayadii oynays way ii timada asigii ayadii baa shab islaheen way isdagaaleen wuxuu igu yiri ayadii wuxuu ku yiri waan ku dilayaa haddii kaleeto gabadheeda ii daa maxaa ka rabtaa xaaskeyga waxaa sidaa ahaana oo dhibaatada ku jirna markii dambe ninkii anina waan jeclahay oo waa oynayaa markii intuu ididalayay waa uur u qaaday
uur baan u qaaday marka uurkii aan u qaaday buu habeenkii asi ma ogo horta waxaa dhacday in inankii liiga xaday asi umaan sheegno inaan aniga ilmo soo dhalay dhibka meeshu ka dhici doono wuxuu ogaan doonaa habeenka inantii anagoo wada sheekeysanayno ee dhehayso ninkii ilmahaagiibaa meel lagu sheegay kanka muxuu ninkeygii ilmahaygiiraa meel lagu sheegay asigan ilaa guriguu soo gala katinkii wuxuu fadhiyaa meesha wuxuu soo galay albaabka markuu soo galay anna qolka ku jira uurkaas waxay dhahan uu ninkii isaga ka soo ridayay idinku maxaa tiraan caadi u dhalaysaa uurka waa laga soo ridaya ban dhahay waa laga soo ridaya qosolka caadi u dhalaysaa waa oohinta ku soco walbaabka guriga ta kor ay ka xiran oo dhaqaaqay habeenkii dhan oo meesha rafanay inantii walaashii baa wacay inantii walaashii intii soo socotay waqtiga qaadanaysa kadib guriga way timid gurigii walbaabka jabis way soo kaxaysay isbitaal bay geysay waxaa kuri 9 kasoo dhibka ii geystan igama haro waa kaasoo dabagalayo oo marba leeyahay waa xaaskayga aan jecelahay kama maarmo ilmihii sidii ay kusoo baxeen waxaan ku iri ilmaha adaa iska lahayd cid lahaydna ma jirto ilmahaas horeetan dhibaatadaasa iiga dhacday anaana dhalay meelna kuma sheego haddaan sheego waan dhala maanta dhan aan ku leeyahana dee ilmihii maba hayo waxay kusoo kordhinaysana eelaysa jirin dacway dadkan ayaga dowladda ku jire kuwii horena way soo baxayaane naga daa aan meesha kaaga baxsane haye waayahay waan soo baxnay gurigeedan soo baxay anigaasi waan soo wacay walaalo waxaan ku yiri madaxiga si ani adima noolaan karno weligaa baasukaaga heeso weligaa qaniyada ku ficnaata nolosheeda badbaadsana adeeg ku taala waxba igama galin nafsadeeda ka qaalisan bes wuxuu yiri maya